waxaan damacnay in aan dib ugu noqonno dowlad goboleedyadii Puntland iyo Jubbaland yaa diiday oo yiri waqtigeeda ma aha doorashada noocan oo kale ah muddaan la hadlaynay oo aan damacnay inaan qancinno waa ku guulaysan weyn waxaan ku casumay magaalada Muqdisho halkan inaan foolkafool aan uga arrinsanno arrintaas go'aan degdegna aan uga gaarno bacdama ay noo harsan tahay wax sanad ka yar nasiib darro labadii maamul waa diideen inkastoo kuwa kale naftigoodu annagu aan doonayn si gaar inaan u shirno waxaan sameeyey tanaasul kale oo markii ay go'aan ku qaateen inay ku shiraan shirkooda ugu horreeyay ay ku qabsadaan Dhuusamareeb halkaas ay ugu casumeen iyagoo iga diida halkan inay yimaadaan yaan waxaan aqbalay inaan Samareeb ugu tago markay ay kulmeen Samareeb 1 waa idin hor imid waxaan idiin sheegay in aan idinku soo celin doono wax alla wixii macluumaad ah oo aan halkaas aan ka soo qaado Samareeb 2 waa ka qayb galnay nasiib darro Puntland iyo Jubbaland ma imaanin waa ka cudur maxaan ku raahdaa Samareeb 2 waa nimid waa ka hadalnay wax badan yaan meel isla dhignay waxaan ku ballannay inaan Samareeb 3 aan ka dhiganno kulankeena aan go'aanka ku gaarayno kadib markii aan baarlamaanka la soo tashado waa idinla tashaday waxaad siiseen green light oo ah waxba u dhibi mayso shuruucdii aad ansixiseen bal walaalahan kale waxay hayaan iyo waxaan la qaadan karno la soo xaajood waa kulannay Samareeb 3 nasiib darro Puntland iyo Jubbaland ma imaanin waa ka baaqdeen saddexdii kale yaa go'aan waxay ku qaateen inay iyagu diyaariyaan doorasho ka duwan qof iyo cod waxaan weydiiyey labada kale aan sugno waa raadinay waa noo imaan waayeen waxaan u fadhinay 10 casho maalintii 10aad yaan go'aan gaarnay in wixii iyagu ay ka shaqeeyeen aan sii deyno markii aan quusannay iyagii naftigoodii waxaan kula taliyey hawshaan annagu waa tanaasulayna haddaan dowladdii federaalka nahay ka soo shaqeeya wixii aad keentaan aan aragno waxna ii keena waxna qaata waxay keeneen noocaan ahayn 2016 taydiina waa laga tegey meel dhexe iyo wax soo madmadoobeeyeen waxay keeneen axsaabihii in sidooda loo sii daayo oo tartanka lagu galo deegaanadii in la badiyo dadkii codeynayana iyagana sidooda kalena la badiyo guddigii madax bannaanaa ee doorashooyinkana ay qabtaan doorashooyinka markii aan go'aankaas gaarnay waxaan damcay in aan Jubbaland iyo Puntland aan ku qanciyo inay nala qaataan bacdamaa aan sugnay 10 casho oo si kasta aan isugu dayn inaan la hadalno qorshahan cusubna uusan dhib lahayn haddii qof iyo cod laga tegey oo iyagu ay u arkayeen dhib u arkayeen kii 16kiina 2016na uusan ahayn waa ka diideen nasiib darro waxaan ku khasbanaa in aan Muqdisho ku casumo marka Muqdisho yaan ku casumo waa doorashadii heshiiskii siyaasadeed maxaan ku waradaa September 17 September aan go'aanka ku qaadannay taasna waxay ahayd tanaasul kale oo aan gaaray oo qof iyo codna waa ka tegey tii Dhuusamareebna waa ka tegey tan waa tii saddexaad marka haddaba 17 September heshiiskii ahaa yaa keenay yaa iska lahaa yaa qoray xeerkaygu wuxuu ahaa sidii tii hore aan yeelay oo markii Samareeb 3 aan joognay aan ku iri qol gala soo madmadoweysta waxaa rabtaan waxna qaata waxna ii keena aan baarlamaankii golahii shacabka aan ku celiyo sidoo kale aan sameeyey waxaan ku iri qol gala
wax ku soo heshiiye qol bay galeen muddo waxay ka shaqaynayeen bil ku dhowaada waxay keeneen heshiiskii aan gaarnay anigu waxba kuma lahayn marka waxba kuma lahayn laba arrimood yaan dabcan inaan ku darsado oo ah guddiga doorashooyinku inuu noqdo guddigii doorashooyinka madax bannaanaa bacdamaa la geliyey dhaqaalo fara badan iyo resource badan la geliyey khibrad badan ay leeyihiin in iyagu ay qabtaan hawsha oo aan la magacaabin guddi cusub oo hadda tababar la siiyo waa iga diideen in dumarka lacagaha fiiga ah laga yareeyo iyagana waa iga diideen labadaasna waa iga diideen laakiin inta kale waa ogaa inaysan suuroobaynin maxaa yeelay haddii doorasho dadban la aadayo haddee laguma qaban karo xisbiyo laguma qaban karo waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa waxaa qoray heshiiskaas Saciid Cabdulaahi Deni isagaa qortay inta kale waa daawanayeen waa xaqiiqa markii uu soo dhameeyey ama ay soo dhameeyeen yaa waxaan ku yidhi ma waxba idinkuga harsan haddii waxaanan public soo dhigno oo aan ku heshiinno ama ka noqotaan ma yidhahdeen kama noqonayno wixii aan rabno waa helnay waana kaa adkaanay waayaani waxba kama qabo waa tanaasulaaye waa iga adkaan kartaane ama wax ka soo noqdaan waxaydan wax ka soo noqonaya ma leh ee baarlamaanka noo gee hala sharciyeeyo waana khasab waa saxiixinaa xitaa heshiis ku dhaafi mayna afgarada waa inaan qalinka ku dugno waa tanaasul kale iyada naftigeeda oo aan sameeyey haddaba hadday tahay wixii ka yimid oo dambe guddiyada siday ahaayeen hadday ahayd yaa maamulaya Somaliland hadday ahayd goobaha doorashooyinka lagu qabanayo intaba si aad ah ayay uga dibeed garayeen waxaad ku aragteenna saas ayay ku dhammeeyeen iyagoo og waxay noqonayso iyo waxay ahaanayso maxamed mursal markhaatiyuu ka yahay waxaan ku adkaysanay in guddiga madax bannaan loo daayo waa diideen maxaa yeelay waxaan walwal ka qabnay amaa guddiyada laisku qabsan doonaa bacdamaa guddigan guddi qaran uu yahay shaqadiisana la yaqaano dowladdaana ay soo magacaaban ay yihiin guddi dhexdhexaad ah ama ay tahay guddigan guddiga ku habboon calaa ayi xaal September 17 heshiiskii ahaa oo ay iyagu qorteen oo ay saxiixeen oo idinku aad u ansixiseen anoo og intiina badan inaydan raalli ka ahayn haddana nasiib darro waa diideen haddana waa diideen waxaa diiday Puntland iyo Jubbaland nasiib darro si kastaan yeelay waa la hadlay magacyada soo dira adduunkan ugu ceebeenna shacabka Soomaaliyeed san qalbi jabin idinkaa waxaan samaystay wixii aan rabay waa iga soo kaxayseen intaasoo jeer iyo tanaasul idin sameeyey waxaan ummadoo dhan baa arkaysee magacyada keena horeyna aan wadno wixii khalad ah oo ku jirana annagoo soconno oo uu socdo doorashada socoto hala saxo waa la diiday waxay gaartay 5 bilood ku dhowaad waxay khasabtay in aan ugu yeero shir shirkaas intaan ugu yeerin ka hor markii aan anigu ku daalay yaa waxaan u diray ra'iisul wasaaraha oo Saciid Deni uu yiri ii soo dir ra'iisul wasaaraha aan ra'iisul wasaaraha wada hadlaynay ra'iisul wasaaraha u diray ra'iisul wasaaraha wuxuu maxaan ku raahdaa joogay meesha la Garowe magaalada Garowe 10 bari ku dhowaad 7 bari markay ugu yartahay waxayna ahayd inuu ku qanciyo wixii iyagu ay saxiixdeen oo ay ku heshiiyeen in la fuliyo ay ugu horeyso magacyadii guddiga in la soo gudbiyo waa lagu fashilmay waa suuroobi weydi intaas kumayna joogsan waxaan islahaa Axmed Qorqoor iyo dadku isku dhow yihiin Deni Axmed Qorqoor yaan u diray aan ku iri bal la soo xaal haddii iyadoo la jabinayn heshiiska waxyaabay u baahan yihiin aan xalin karno bal ka keen dalab hadday hayaan waa tegey horay kama tegin meesha ahayd
samareebe xamar uu toos u yimid isagoo fariintii wada iyo dalabkii markii uu noo keenay haddana waa aqbalnay waa tanaasulkii shanaad waxaan ku celi waa ka aqbalnay inta saddexda arrimood ay keeneen si hawsha iyo doorashada ay hore ugu socoto arrintaasi iyadana war kalaa ka yimid oo ma suuroobin inaan horay u soconno xaqiiqatan waxaan idiin sheegayaa arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda soomaaliya ay ku jirto waxaa ku jira faragelin shisheeye xaqiiqatan anugu marna ma odhanayo hebel iyo gobol hebel yaa faragelinta ku badan tahay ama ka yar tahay laakiin xaqiiqada jirta waa taas weeye oo aad moodayso inaysan waxba noogu hagaagin inta badan haddaba kii ugu dambeeyey oo aan iclaamiyey oo samareeb 4 aan odhan karno oo kii ugu dambeeyey ah waxaan filayey haddii aan halkaas kugu tagno inaan wax isla soo dhadhaweyn karno nasiib darro iyadana ma suuroobin oo warbixintaasi waa iga soo horreysay oo wasiir dubbe yaaba xalay shaaciyey sababihii keenay in hawshaas aysan hore u socon laakiin rajaa jirta waxaan ku ballannay in aan hore u soconno haddii markaan ay sidaas wax naga noqdeen aan u ballanno kulamo dambana aan u samayno si aan xal uga gaarno maxaa la yidhaahdaa impaaskaas ama hakadkaas na galay ugu dambayn